xulka qaranka dalka Morocco ayaa u soo baxay wareegga afardhamaadka koobka dunida 2022 iyagoo soo bandhigay qaab ciyaareed heer sare ah korna u qaaday hamiga qaaradda Afrika. Habeennimadii xalay waxaa markii loo eego gaaray guul taariikhi ah oo ay ka gaareen xulka qaranka Portugal oo ka mid ahaa xulalka sida xoogga leh loogu saadaalinayay inay ku guuleysan karaan dhacda koobka adduunka. 50 sano ka hor ayay ahayd in la sameeyay saadaal ku aadan in waddan Afrikaan ah uu soo gaari karo heerka waqtigan uu joogo. bartamihii toddobaatameeyadii qarnigii hore markii soo afjarantay waayaha xidig reer Brazil Pele ayaa xilligaa wuxuu saadaaliyay xulka qaranka Afrika ka socda uu qaadi doono koob adduun markii la gaaro sanadka 2000. inkastoo saadaasha Pele ay soo yara dib dhacday, haddana kubadda qaaradda Afrika ama kubadda cagta Afrika wax badan ay horumar ka samaysay tan iyo toddobaatanaadkii qarnigii hore. qaaraddu waxay gaareen siddeedamaadkii toddobaadkii hore waa markii afraad taariikhda koobka adduunka, iyadoo habeennimadii xalay hamigii uu sare u kacay qaaradduna ay gaartay wareegga afardhamaadka finaalkiina hal tilaabo oo qura ay ka xigto. 1990kii Cameroon waxay noqotay xulkii ugu horeeyay Afrikaan ah oo u soo baxay siddeedamaadka koobka adduunka kadib markii qaab ciyaareed heer sare ah ay ku garaaceen Argentina, Colombia iyo xulal kale, laakiin waxaa ku adkaaday Ingiriisku inay dhaafi kari waayeen xilligaa. 2002 xulka qaranka Senegal ayaa si lama filaan ah ugu soo baxay waxayna gaareen wareegga siddeedamaadka iyagoo guulo xasuus leh ka gaara France iyo Sweden. xulka qaranka Ghana ayaa dhankiisa gaaray wareegga siddeedamaadka koobka adduun 2010 ee South Africa, laakiin waxaa rigoorayaal ku reebay Uruguay. haddaba Morocco waxay ku celcelisay guusha ay gaartay iyadoo hami ay ku jirto inay gaarto afarta dambe. ugu dambeyn waa ay ka dhabaysataa guul ay ka maarmi weyday qaaradda ee buni. habeennimadii xalay xulka Morocco waxay gaareen guul taariikhi ah uga soo baxeen semifinalka. waa markii ugu horeysay xul Afrikaan ah oo sidan sameeyo, si la mid ah waa xulkii Carabeed ee ugu horeeyay ee heerkan ka gaara koob adduun. Pele wuxuu filayay in xul Afrikaan ah ku guuleysan karo koob adduun markii la gaaro 2000, balse taama ay dhicin, laakiin saadaashiisii weli ma dhiman oo faaladeedii waa la arkaa 2022. haddaba su-aasha ugu muhiimsan ee la isweydiinaya ayaa sanadkan ma noqon doontaa sanadkii ay Afrika qaadan lahayd koob adduun.